shirkadda isgaarsiinta Somtel xarunteeda goboladan Awdal iyo Salal waxay maanta deeq isugu jirta qalab sports guddoonsiisay ciyaartoyda gobolkan Awdal u matalaya koobka kubadda cagta gobolada Somaliland oo kowda bisha soo socota ka furmi doona magaalada Burco ee gobolka Togdheer. munaasabadii deeqdaasi sports ay shirkadda isgaarsiinta Somtel xarunteeda goboladan Awdal iyo Salal ku guddoonsiinaysay ciyaartoyda gobolkan Awdal waxay ka dhacday howlka dawladda hoose ee magaaladan Boorama waxaana ka soo qayb galay maayarka degmadan Boorama Cabdiraxmaan Shidabile, xogayaha dawladda hoose ee degmadan Boorama Cabdikariim Sheekh Cusmaan Xasan, isuduwaha wasaaradda sportska dhalinta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Somaliland ee gobolkan Awdal Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahim, gudoomiye ku-xigeenka gobolkan Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal, qaar ka mid ah ciyaartoyda xulka qaranka ee gobolkan Awdal iyo tababarahooda. waxaana madashan ugu horeen ka hadlay maayarka degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile waxa uuna ka waramay qiimaha ay leedahay in la garab qabto